qofka qaba cudurkan wuxuu caan ku yahay waji aan faraxsanayn socodkiisa oo yar wax reaction ma laha qofkan habeenkii markuu jiifto afkiisa waxa ka qubanaya dhareer fara badan hadalkiisu waa mid aad u yar ama aad u hooseeya inta badan qofkani codkiisa iyo wax qoraalkiisa aad ay u liitaan sidoo kale qofkan hadii wax la weydiiyo aad uma jawaabo ama si clear ama si wacan uga jawaabo waa Parkinson disease cudurka ku dhaca dadka caanka ah cudurkan wuxuu ku dhacaa dadka da'doodu ka sareyso 50 sano kadib markuu ku dhacay dad badan oo caan ah ayaa loo bixiyay xanuunka ku dhaca dadka caanka ah waa xanuun ku dhaca maskaxda sidoo kale Parkinson wuxuu dhibaato u geystaa neerfaha bini'aadamka markii ugu horeysay ee la ogaaday cudurkan waxay ahayd sanadku markuu ahaa 1817 miilaadiyada James Parkinson oo ah dhakhtar u dhashay dalka Ingiriiska ayaa sheegay cudurkan inuu sababo dhimashada unugyada iyo dareemadayaasha 500 oo qof oo kasta oo ku nool dunida ee da'doodu ka sareyso 50 sano waxay ugu jiraan halis hal qof oo kamid ah inuu ku dhaco xanuunkan markasta oo da'da qofka ka sii kororto 50 sano waxa halis ugu jira inuu ku dhaco cudurkan sidoo uu dhici kara qofka cudurkan maada la yiraahdo dopamine oo ah maada laga soo daayo maskaxda gaar ahaan barta lagu magacaabo substantial nuclear oo ah maado muhiim u ah jirka taas oo jirka u kala gudbisa fariimaha dadka qaba cudurkan waxa meesha ka baxa maadadan lagu magacaabo dopamine-ta ka bacdi qofka socodkiisu wuxuu noqonayaa mid aan miisaaneyn ama aan ahayn balanced maskaxda bini'aadamka ma maamuli karayso markaas qofka socodkiisa dhaqaatiirtu waxay dhahaan cudurkan wuxuu ka dhashaa qofka oo waaya maadadan lagu magacaabo dopamine-ta wax saxda ah ee sabab cudurkan lama yaqaan ilaa hadda waxa la qiyaasayaa inuu ka dhasho cudurkan waxyaabo ilmo aragta ah sidoo kale difaaca jirka oo daciifa ama walxas sun ah halka sidoo kale la sheego cudurkan inuu noqdo dhaxal qofku uu ka dhaxli karo familigiisa qof kamid ah oo qabay cudurkan lagu magacaabo Parkinson maxaa lagu gartaa qofka qaba inta badan qofka qaba cudurkan waxa lagu garan karaa inuu yahay qof aad u jarayna ama gacmaha ka lulmoonaya ama gacmihiisa jaraynayaan sidoo kale qofkan socodkiisa ayaa yahay mid aad u gaaban sidoo kale qofka murqiisa waxay noqonayaan kuwa aad iyo aad u adag qofkan sidoo kale hadalkiisa wuxuu noqonayaa mid uu ku dhaco isbedel wuxuu noqonayaa mid soft ah ama aad u jilcan sidoo kale qofkan wuxuu noqonayaa markii wax qoraya inay noqoto mid aad uga adag qoraalka cudurkan wuxuu ku badan yahay ragga markii loo eego dumarka Mareykanka oo kaliya waxa laga helaa in ka badan 1 milyan oo qaba cudurka Parkinson waxaa jira dad fara badan oo caan ah ku dhaca cudurkan Parkinson sababta cudurka loogu bixiyay ayaa ahba dad badan oo caan ah markuu ku dhacay waxa kamid ah dadkaas Maxamed Ali Karaay beeriyahanka muslimka ah ee u dhashay wadanka Mareykanka ee ahay ninka ka soo jeeda dadka madowga ee ku nool Mareykanka sidoo kale waxa kamid ah Mao Tse-tung sidoo kale waxa kamid ah hogaamiyihii kale taliska ee Hitler ee naasiyiinta sidoo kale waxa kamid ah baadarigii weynaa ee la dhihi jiray Yohanihii labaad sidoo kale dadka caanka ah ee cudurkan ku dhaca waxa kamid ah madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Ronald Reagan qofka qaba cudurkan wuxuu caan ku yahay waji aan faraxsanayn inta badan sidoo kale qofkani waa qof aan si quman aan u hadlayn ama hadalkiisa loo fahmayn sidoo kale hadii wax la weydiiyo si saxan ama si toos uga jawaabi karo daraasado badan oo lagu sameeyay cudurkan ilaa hadda looma helin daawo dhameystiran oo lagu daaweeyo kaliya qofka waxa laga daaweeyaa calaamadaha sida cudurka sokorowga oo kale qofka qaba cudurkan haduu kula joogo waa inaad ilaalisaa kalinimada inuu qof kali noqdo sidoo kale waa inaad ula dhaqantaa qaab wanaagsan oo cunfi lahayn ula dhaqan oo ka ilaali dadka walwalka ku beeraya qofka qaba cudurkan markasta waa qof walwalsan sidaas darteed waa inaad la tashataa dhakhtar cilmi nafsiya